السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقالكنا إن شاء الله وحين كوغر فينينا حقيه يسويالكي معمر القذافي. معمر محمد عبد السلام القذافي وحاو كل شيء قبيلك غداد فدا وحنو كل شيء تدبي تشون كل سجال بقول بيا فرتنكي أجارك وبيج الجارف دجان كسرت دلك الليبيا أبيهنا وحبرشة وجدري مجال السرت هل كاس يونا دوكسي لح كل ماي كل سجال بقول لحية كنتم كي inkasta oo uu qadaafi ahaa barbar caraboobay haddana waxay yaraantiisii ku beerantay fikrad ah qoomiyadda Carabeed han hogaamineedna wuu galay markii uu 14 jir ahaana hogaamiyaha ardaydiisa ayuu ahaa waxaana uu ka qayb qaatay mudaharaado lagu diidanaa burburkii jamhuuriyadda Carabeed ee Suuriya iyo Masar markii ay dawladdu ogaatayna waxbarashadii dugsiga ayaa laga caydhiyay 1961 kadibna waxa ay u guureen reerkoodii deegaanka Misrata halkaas ayuuna ku dhameystay waxbarashadiisii waxa uu go'aansaday inuu galo jaamacadda Benghazi balse 1963 waxa uu galay ciidanka oo tababar ayaa u bilaabmay sanadkii 1966 waxa loo diray tababar dhanka Ingiriiska ah halkaas ayuuna ka soo bartay afka Ingiriisiga iyo adeegsiga hubka cirkaba intii uu halkaas joogayna waxa uu xirfad ka dhigtay wax akhriska iyo kubadda cagta balse waayahaas Qadaafi wuu dhibsaday Ingiriiska iyo dibadda dalkiisaba waxaana uu dhaadanaa in ay askarta Ingiriisku dhayalsanayaan oo yasayaan maadaama aanu isagu bedelin oo ka mudxin carabnimadiisii kadib markii uu ku soo laabtay Liibiya ee uu ka mid noqday ciidanka waxa uu aasaasay ciidan ka dhana maamulkii boqortooyada ee dalkaas September 1969 waxa uu oogay kacdoon iyo afgembi uu boqortooyadii hore khadka kaga saaray dalkiina uu isagu gacanta ku dhigay isaga oo aan 30 jirba gaadhin waxaana uu hal mar isku qabtay xilal kala ah hogaamiyihii dalka hogaamiyihii kacdoonka iyo hogaamiyaha ciidamada qalabka sida haddii uu dalkii qabsadayba waxa uu amray in ay dalkiisa ka baxaan saldhigyadii military ee Mareykanka iyo Ingiriisku shirkadihii maalgashaday shidaalka dalkiisa ee reer galbeedka ahana waxa uu ugu hanjabay inuu maalgelintoodii soo afmeerayo oo dalka ka saarayo taasoo sababtay in ay dantooda eegtaan oo saamigii ay Liibiya ku lahayd shidaalka dalkeeda ee ahaa 50% ay gaarsiiyaan 79% isla sanadkaas ugu horeeyay ee uu xilka qabtayna sirdoonka Masar ayaa fashiliyay afgembi ay isaga ku wadeen taliyayaashiisii sarsare waxa uu albaabada u laabay mukhbaaradihii tirsigii milaadiga ahaana bilihiisii magacyadoodii ayuu bedelay oo bisha August ee loogu magac daray boqorkii Roomaanka ahaa waxa uu u bixiyay Hannibal oo ah ninkii Roomaanka holaca jiirsiiyay ee Afrikaanka ahaa bisha July iyadana loogu magac daray boqorka Roomaanka ah waxa uu ugu magac daray Nasir isaga oo ula jeeda Jamaal Cabdinaasir kii Masar sidoo kale hijrigii iyo milaadigiiba uu ka tagay oo waxa uu alifay tirsi ka bilaabmaya dhimashadii xabiibkeena sallallahu alayhi wa sallam sanadkii 1970 waxa uu dalkiisa ka saaray Talyaanigii hadhaaga ku sii ahaa iyo jaaliyadihii Yuhuudda ahaa ee ku dhaqnaa isagoo ku andacoonaya inuu jiro dagaal ka dhaxeeya ummadda Carabeed iyo reer galbeedka uuna diidan yahay jiritaanka Zionismka iyo Israa'iil si uu afgembi iyo waxyaabo la mid ah isaga ilaaliyana waxa uu xilalkiisii sarsare ku taxay qaraabadiisii iyo saaxiibadii sidoo kale siyaasad cad oo cadaawadnimo iyo colaada ayuu muujiyay Yuhuudda bilowgii maamulkiisaba dhowr jeerna waxa uu isku dayay inuu xuduudaha ummadda islaamka isu furo oo xataa mar ayuu Tunis kula heshiiyay inay dalalkaba isku daraan madaxweynaha Tunisna uu ahaado madaxweyne balse ma ay hirgelin bilowgii maamulkiisana waxa uu xiriir wanaagsan dhex maray Ruushka dhowr jeerna uu booqday dagaalkii qaboobana Ruushka ayuu la jiray markii ay reer galbeedku ka gadi waayeen hubkiina Ruushka ayaa ka iibiyay markii madaxtinimada Mareykanka qabtay Ronald Reagan cadaawad uu muujistay ayuu la galay Qadaafi isagoo oo ku sheegay inuu yahay eeyga raabiyada qaba ee bariga dhexe daandaas ciidanna uu la galay oo laba diyaaradood oo Liibiya leedahay ayuu soo riday shirkadihii Mareykanka ee ka howlgalayay halkaasna waxa uu faray inay xiriirka u jiraan Qadaafi dalkiisina go'doon ayuu saaray oo waxa uu soo jeediyay inaan shidaalkiisa la gadan Qadaafina uu iska dhiciyay daandaasiyadii ciidannimo waxaana uu ugu hanjabay inuu si rasmi ah ugu biirayo waarso iyo bahda hanti wadaaga sanadkii 1986 waxa uu Mareykanku ku dhaleeceeyay Liibiya inay ka dambeysay qarax ka dhacay tiyaatar ku yaala Berlin oo ay ku dhinteen laba askari oo Mareykan ahi dagaal cirka ah ayuuna ku soo qaaday Liibiya inkasta oo Ingiriisku ku taageeray haddana Yurubtii kale oo dhami way ku diiday duulaankaas Mareykanka weerarkaas cirka ahina waxa uu galaaftay ku dhawaad
boqol qof oo liibiyaan ah dhammaadkii qarnigii 20aad waxa uu dhaaday Qadaafi fikraddii ahayd mideynta ummadda Carbeed inay fashilantay waxaana uu markan u jeestay dhanka mideynta ummadda qaaradan hodanka ah ee Afrika waxaana uu la galay kulano badan madax Afrikaana sanadkii 2009 ayay ahayd markii ugu horeysay ee uu xaadiray shirka qaramada midoobay waxaana uu ka jeediyay khudbad qaadatay saacad iyo 35 daqiiqo arrimaha uu soo bandhigayna waxa ka mid ahayd inay reer galbeedku siiyaan qaaradda Afrika hanti dhan oo ah 7.77 trilyan oo dollar oo magdhow u ah adoonsigii iyo gumaysigii ay u geysteen dadka Afrikaanka ah markii ay ogsadeen kacdoonadii la magac baxay guugii Carabtu waxa uu ku eedeeyay dadka reer Tunis inay ku degdegeen madaxdoodii oo ay rideen dawladoodii masaaridana sidoo kale uu ku canaantay balse muddo yar gudaheed basharaaradii holacaasi Liibiya ayay ka qaraxday isaguna uma uu tudhan ee gacan bir ah oo arxan daran ayuu kala hortagay intii u dhaxaysay 15 February ilaa 23 Oktoobar 2011 nidaamkii iyo dawladii uu ku tabcayay muddada 40 sano ahna dad ku gadooday oo xildoon ahaa ayaa soo afmeeray 20 Oktoobar 2011 isaga oo ah 69 jir Qadaafi waxa uu madaxda kaga sheeganaa in ay ilaaladiisu ahaayeen haween khaas ah baaskooladiisii dahabka ahayd ee 12 bilood la sameynayay ee ay ku baxday lacagta ka badan milyanka dollar baaqiisii ahaa in la sameeyo dal la yiraahdo Israatiin kadib markii ay dhabowday in aan Yahuuda Falastiin laga saari karayn Falastiiniyiintana la sii cadaadinayo ee uu soo bandhigay in dal ay ku midaysan yihiin la sameeyo labadooda magacna loo qaybiyo dalkaas oo loo bixiyo Israatiin iyo hantidiisii ka badnayd 200 bilyan ee dollar oo uu ku noqonayay ninka adduunka ugu taajirsan si indhaha laga lelin jiray maadaama uu madax ahaa dhanka noloshiisa xaasnimo waxa uu guursaday 2 xaas waxaana uu dhalay 8 caruur ah dhanka kalena buugaagta dhaxalka iyo dhigaalka ee uu walifay waxa ka mid ah al-Kitaab al-Akhdar تحيا دولة الحقراء قراءات تحليلية في خطاب تمبوكتو إسرائيل الكتاب الأبيض يبوغا كلا أو لمد ugu dambeyntii Qadaafi danta laga lahaa ridistiisu noocay doontabaha ahaato dalkii la oran jiray Liibiya ee uu isagu ku waday in uu Afrikaba hogaamiya dalkiisii kama uu dambeyn maanta saaxadda dawladnimo uu ka baxay oo macno weyn kuma fadhiyo shidaalkii markii uu xilka qabtayba uu ka howlgalay in uu saami lahaadle ka xaasilsadaana maanta waa qasabad ay cadaawihiisii afka u dhigtaan dal kasta oo madaxdiisa ku ciyaarana wadadaas ayuunbuu marayaa halku dhigiyada Qadaafi laga hayana waxa ka mid ah hantiiluhu waxa uu hantiilo ku noqdaa hantida saboolada adduunkeenan kama jirto dawlad dimuqraadi ahi difaaca qura ee aynu isku ilaalin karnaa waa midnimo Carbeed ee ama weynu midoobi ama jidkii hindidii cascasayd ayaynu mari dadka ku shaqeeya mushaharada si kasta oo ay mushaharadoodu u sareeyaanba waa adoomo iskaashi iyo isqadarini kama dhaxeeyaan ka xoogan iyo ka taagta daran iyo sidoo kale hantiilaha iyo saboolka inahaasi waa murtiyaha laga qaadan karo Qadaafi balse waxa uu lahaa halku dhagiyo iyo oraaho in uu waalan yahay la moodo oo qosol iyo maad ah waxaana ka mid ahaa waligayba Liibiya waan ka talinayaa ilaa aan ka dhinto ama ajashaydu ay go'do sababta ugu weyn ee furiinku waa guurka dumarku xaq ayay u leeyihiin inay sharaxaan lab ha ahaadeen ma dhadige shacabkaygu sidii adoontaanba mudaharaada laakiin jidadka iyo barxadaha ha u soo bixina usamafalka waalidku uu ka mudan yahay adeecista hooyada iyo aabaha Israa'iil waanu la dagaalamayna ilaa askarigayaga u dambeeya ee masaari ah kala duwanaanshaha u dhaxeeya ragga iyo dumarku waa inay ragguna lab yihiin dumarkuna dhadig yihiin Qadaafi marka soo yarkiisa dusha laga eego waxa uu ahaa nin xaraabo u muuqda balse waxa uu ahaa siyaasi jiitay oo loo babacdhigi kari waayay aakhirkiina awood iyo xoog lagu muquuniyay maanta qof kasta oo Liibiyaan ah waxa uu niyeysanayaa Ilaahu ya hal mar Qadaafi soo nooleeyo oo dalkiisidii uu ahaa dib ugu celiya taa macnaheeduna waxay tahay ummadda marka iyaga la isnacsiinayo taariikhdooda iyo sooyaalkooda inta foosha xun ayaa laga tusaa marka la isjeclaysiinayana inta quruxda badan ayaa laga tusaa والسلام عليكم